aad baan idinku mahadnaqayaa tiimkiina codka shacabka doorashooyinka masaafada fog horta runtii anigu ayaamihii shaqadan aad bilowdeenba markiiba waan la qabsaday oo waan helay inuu abuurmay group maaragtay sameyn karaya analyze iyaga oo maaragtay long distance ama masaafo fog maaragtay ka shaqeynaya iyo gudahaba marka laakiin waxaan sugayay resultka iyo natiijada bal wadada ay aado waayo maan garanaynin sida ay professional u noqon karto dadkeena in ilaa iyo xadkaas loo sameeyo maaragtay data collection ku saabsan natiijada doorashooyinka iyo sida ay u doorbidayaan isbedelada wadanka ka socda marka waan si dhow baan ula socday marka waxaan ka helay haddana de xog fiican runtii oo aanan filaynin oo aan u arko inay dadka ay ku tusayso dadka reer Soomaaliland inay aad ugu bislaadeen technology-ga iyo la jaanqaadka caalamka markay timaado qofku inuu muujiyo waxa uu doonayo wuxuu diidayo. Thank you. horta arintani waa analyze waa cilmi baaris waxa weeyaan waa qiyaas dadka mujtamaca reer Somaliland fikirkooda banaanka lagu soo dhigayo waana waxyaabo adduunyada horumartay ay hadda muddooyinkii 20 sano ugu dambeysay ay isticmaalayeen marka election analyst wuu jiray awalba weligii laakiin inaga wadankeena oo runtii aan ku faraxsanahay Soomaaliland mar walba inay leader u tahay iyo hogaamin xagga maaragtay furfurnaanta iyo aqoonta iyo daafurnaanta siyaasadaha wax weyn bay ka taraysaa aad baan ugu faraxsanahay in dadka reer Soomaaliland ku baraarugaan arintaas waxa nooga soo baxay laba waxyaabood horta kow annaku haddaanu nahay urur siyaasadeedka waa bari waxaanu lafdhabar u nahay isbedel doonka waxaanu lafdhabar ugu nahayna waxa weeyaan waxaan ku soconaa qadiyad dhab ah oo isbedel siyaasadeed dalkan ka dhaca marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii aan uga mahadnaqayaa dadka reer Somaliland intellectualka iyo aqoonyahanka iyo dhalinyarada dareenka iyo fahamka ay fahmeen wadankoodu inuu u baahan yahay inuu jiha cusub oo siyaasadeed qaado aad ma runtii ugu faraxsanahay aad been farax gelinaysa waan uga mahadnaqayaa waliba waxaan isleeyahay dadku wali kuma baraarugsana haday og yihiin dadku macnaha uu yeelan karayo resultigan uu yeelan karayo iyo waxa uu ka dhigan yahay waxaan u maleynayaa natiijo ka sii weyn maanta aad haysaan oo dadku ay u codeeyeen isbedel doon mid ka weyn la heli lahaa fariintan u diraya waxa weeye isbedel doonka waxyaabaha inuu rabnaa waa saddex waxyaabood qofkuna inuu intaa fahmaa wanaagsan isbedel doonka waxaanu annaku u nahay oo ku hogaaminaynaa in la helo dal hufan oo aqoon siyaasadeed oo mujtamaca iyo dhalinyarada dalkani ay aamini karaan lagu hago waxaan rabnaa inaynu dhidibada u taagno soddonkii sanadood ee aynu soo dhaafnay siyaasadeena old fashionka ama traditional style-ka ku socotay ee base-ka oo ahaa dhaqanka qabyaaladu inaynu ka guurno waayo had inooma jiidayso mustaqbalkeennina waxaad moodaa inuu halkii qabyaaladu ku soo oodmi jirtay inuu ku soo oodmayo haddaynan degdegtaa u fahmin marka waxaan odhan lahaa fariintan u dirayaa waxa weeye dadka muwaadiniinta horta kow wadaniyeed waa inayna hagto waa inaynu leenahay shucuur wadaniyeed oo ka xeel dheer taqabyaalada iyo garashada gaaban waa inaynu leenahay aragti aqooneed oo mustaqbalka dalkeena iyo dadkeena aynu ku wajahno waa inaynu leenahay dareen khataraha jiri karaya iyo horumar la'aanta iyo waxaan loo yaqaano inaynu meel kaliya ku xanibanahay ee afka qalaad lagu yiraahdo stagnation inaynu ka guurno oo aynu u guurno dal koraya
siyaasaddiisu ay korayso ilbaxnimadiisu ay korayso nidaamkiisa maxaa la yiraahdaa dhaqaale siyaasadeedna uu yahay mid xasilan oo degan uu yahay sidaa kaliya sida lagu heli karaya waa qabyaaladda oo laga guuro oo lala dagaalamo aqoonta iyo dhalinyarada oo chance la siiyo oo aan chance-ku uusan noqon in la yiraahdo codeeye talada dalka loo dhiibo marka waxaan odhan lahaa in isbedelka uu muuqda already dadkeenu inay taa fahmeen laakiin waxaan odhan lahaa ha laga kaco fadhiga hana loo diyaar garoobo Somaliland mar labaad in dib loo dhiso waxa cadna institutionskeena dawladnimadu umay korin sida private sectorska 30 sanadood waxa cad hadeynaan bedelin jihadaynu soconno inay wax inaga dhacmeen waxba inoo soo kordheen marka waxaan aad iyo aad ugu taakiidin lahaa dadka reer Somaliland ee dalkooda jecel in ay isu taagaan taageeraan isbedel doonka doorashada masaafada macnaheedu waxa weeyaan dad reer Somaliland hadda saan ka arkayo resultka iyo natiijada ka soo baxday halka ay marayso codka shacabka dadka ka codeeyay waa dad ku dhow 160,000 oo qof 160,000 oo qof waxay la macno tahay Somaliland oo doorasho ka dhacday way dadkan codkooda iyo dareenkooda iyo rabitaankooda ayay muujiyeen waxayna dadkaasi intooda badan u codeeyeen in dalku uu u baahan yahay isbedel siyaasadeed ma aha tan ka hadlayo anigu uma taagni mana matalo siyaasad ku salaysan qof lagu bedelo ma taagni kursi lagu bedelo ma taagni oo uma matalo qabiil bedela anigu waxaan u taaganahay ama aan u taaganahay reer Waaberi waa siyaasad dhab ah iyo intijaah siyaasadeed oo bedela mid hore oo jiray marka sidaa darteed waxaan u arkaa inay uga dhigan tahay Somaliland guul aad u weyn iyo horumar ilbaxnimo oo loo qaaday xagga aqoonta iyo siyaasadda biseylkeeda aad baan uga mahadnaqayaa boqolaalka kun ee ka qayb qaatay runtii cod bixintan ilaa maanta resultigeedu isbedel doonka uu hogaaminayo waxaan u diri lahaa horta kow waxay u baahan tahay danteena siyaasadeed maanta dareen wadaniyadeed waxay u baahan tahay aqoon ay ku dhisan tahay xeel dheeraan iyo degenaansho waxay u baahan tahay midnimo Somaliland oo la xaqiijiyo dal ahaan xuduud ahaan mujtamac ahaan inay yihiin dal mid ah si ay u gaadhaan siyaasad qaangaad ah oo dalkan ka hana qaada sidaa darteed waan uga mahadnaqayaa in ay ku soo kordhiyeen dadka reer Somaliland aragti ilbaxnimo leh oo la jaan qaadaysa caalamka iyo doorashooyinka analyska doorashooyinka caalamka sida loo dhaqmo aad baan ugu taakiidinayaa inay sii wadaan dadkana waxaan leeyahay fahma dhaqanka noocan oo kala ah waa mid inaga saaraya nidaamka qabaliga iyo kala qoqobnaanta waa mid inagu hogaaminaya qofku isagoo oo aan cidina wajigiisa garanayn in la garto Somalilandnimadiisu heerka ay gaarsiisan tahay iyo aqoontiisa siyaasadeed iyo bisayl intaasaan oran lahaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqay runtii shaqo fiican bayna qabteen aad u mahadsantahay gudoomiyaha kaga mahadcelinayo waqtiga qaaliga na siisay thank you very much